Asalaamu calaykum dhammaan mu'aashaqiinta xiisaysa Konami ama eFootball meel walba adduunyada ku joogtaan kusoo dhawaada muuqaal cusub subax kastoo khamiis ah waxaad igaga barateen inaan idin soo gudbiyo waxyaabaha sida officialka ah geemka loo keeni doono iyo waqtiga geemka lasoo fasixi doono. Muuqaalkan waxaan kugu sheegi doonaa ama aan kugu faahfaahin doonaa waxyaabaha sida saxda ah loo keeni doono players of the week-yada iyo waxyaabaha sida officialka markaasi u imaan doono iyo waqtiga geemka lasoo deyn doono ayaan kula wadaagi doonaa. Usoo haddii ay tahay markii kugu horeysay aad channelka soo booqato waxaan kaa codsanaa inaad muuqaalkan like saato, channelkan aad subscribe dhahdo, kambalelkan aad furato si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adigoo kaleeto. Haddii aad hore noola joogteen muuqaalkan like saar u share garee saaxiibadaada si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adigoo kaleeto. Waayahay waxyaabaha sida officialka loo keeni doono maanta waxaa waaye players of the week-yada. Players of the week-yada sida officialka loo keeni doono shirkadda Konami. Sawirkan oo labadan ciyaaryahan ayay shaacisay worldwide December 29keeda 2024 waxay keeni doontaa labadan ciyaaryahan oo sawirkooda halkan ugu jeedo laakiinse aan la arkaynin. Labadaas ciyaaryahan waxaa waaye Son iyo Martinez. Son iyo Martinez ayaa la sheegay in markaasi aysan baaqan doonin oo la keeni doono. Ratingkooda iyo waxa uu gaaraya ayaan isla arkaynaa. Waxaan ku bilaabaynaa ninkan la yiraahdo Martinez wuxuu ku imaan doonaa 94 wuxuuna gaari doonaa 99 waa CB oo u ciyaara Manchester United. Ninka labaad aan kuu sheegay aan baaqan doonin waxaa waaye Son oo ku imaan doona 96 wuxuuna gaari doonaa 101 ayuu gaari doonaa. Ciyaaryahannadan kale hadda u jeedana waxaa la leeyahay 80% ayagana waa ay ku jiraan ma baaqan doonaan. 11 qof oo players of the week-yada haddii aan kula wadaago waa sidan. Son ayaa u horeeya, Alexander Isak, ninkan kaleeto oo Manchester United u ciyaaro ayaa ku jiro. Asi iyo Martinez in hal qof la keeno ayaa macquul ah. Waxaa kaloo aysan baaqan doonin oo la keeni doonaa European Championship ama European Club Championship-kan asigana labadan ciyaaryahan ayaa markaasi la shaaciyay oo dhanka shirkadda laga shaaciyay. Labadan ciyaaryahan ayaa la sheegay in markaasi la keeni doono laakiinse hadda sawirkooda si sax ah uma jeedid. Waa kuwan labadan ciyaaryahan waxaa waaye Torres oo u ciyaara Barcelona oo CF ah iyo ninkan Alvarez oo u ciyaara Athletic Madrid oo CF ah. Labadan ratingkooda iyo waxa uu gaaraya haddii aan isla fiirino Alvarez wuxuu ku imaan doonaa 95 wuxuuna gaari doonaa 99. Ninkan kaleeto oo la yiraahdo Torres asigana wuxuu ku imaan doonaa 95 wuxuuna gaari doonaa 100. Ciyaaryahanno kale oo waxaa jiro 80% ah sida Alisson Becker, Bukayo Saka, Griezmann iyo Achraf Hakimi oo kale ayana waa 80%. Waa in la keeno ay aad u badan tahay. 12 qof oo markaasi la keeni doono sidan ay u muuqan doonaan Vinicius Junior, Alisson Becker, Achraf Hakimi, Torres aad u badan yihiin. 12daas qof ayaa la filayaa in markaasi la keeno. Halkan waxaa ku jiro ciyaaryahankan la yiraahdo Manuel Lino oo u ciyaara Athletic Madrid. Asiga iyo ninkan la yiraahdo Alvarez labadooda shirkadda hal mar ma wada keeni doonto. Laga yaabaa mid ka mid ah in markaasi ay ka soo tagto sababtoo ah shirkadda Konami laba ciyaaryahan oo isku mid ah ma wada keento ama laba ciyaaryahan oo hal naadi isla ciyaaro ma wada keento. Waqtiga geemka la soo deyn doono ayaan kula wadaagi doonaa. Saa ogtihiinba geemka hawada ayuu ku maqan yahay. Subax kastoo khamiisana hawada ayaa laga saaraa si wax loogu soo bedelo oo wax cusub loogu soo daro. Marka waqtiga saxda ah oo geemka la soo deyn doono maxaa waaye horta Soomaaliya waqtiga saxda ah geemka loo soo deyn doono waxaa waaye 5 saac oo subaxnimo waaye. 5 saac ayaa la soo deyn doonaa geemka waddanka Soomaaliya. 5 saac ayaa loo soo deyn doonaa. Wadamada kale iyo waqtiga loo soo deyn doonana shaashada ayaan ku saarayaa. Please ha iga iloobin inaad muuqaalkan like saarto,
channelkan aad subscribe dhahdo, gambaleelkana aad furato.